بالكاغاني مولوا وشغلوا الشابوري قصارى ولا كليل munaasabad ballaaran oo dhaqaale loogu ururinayo dadkii ay tacadiyadu soo gaadheen 30kii sano ee TPLF ka talinaysay Itoobiya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Jigjiga waxaana munaasabadani ka soo qayb galay madaxweynaha deegaanka Soomaalida qaar ka mid ah golaha wasiirada ee deegaanka qaasha waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyntiina waxa madashaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay walaalayaal dadka Soomaaliyeed maanta dadkaasi inagayna sugayaan dawlad kaliya maaha urur kaliya maaha shacabka deegaanka cid aan dhibaataysnayn maanta ma jirto marka shacabka Soomaaliyeed maalqabeennada Soomaaliyeed dhammaantiin dal iyo dibadba inta jooga waxaan codsan lahayn anoo ku hadlaya magaca odayaasha in dadka walaalihiin maanta u fadhino aynu caawino dadkeenu wada bukaa jidka dheecaan baa meel walba ku jirta haddaan la isxaal marin haddaan la isku tanaasulin haddaan la iscafin nabadaan maanta haysana ma sii waarayso waxaan markuu mahadnaqayaa meeshan aan uga mahadnaqayaa madaxweynaha aan jecelnahay mudane Mustafa ayaan horta maarka uga mahadnaqayaa maadaama niyadeenada ay wanaagsan tahay ummadana aan doonayno inaan wax qabanno waxaan ilaahay ka rajaynaynaa niyadeenada inuu nagu abaalmariyo waxaan idinka rajaynaynaa oo idinka codsanaynaa support inaad nagu siisaan hadduu yahay sanduuqan iyo hadduu yahay barnaamijka aan doonayno ee sidaan ummadana aan maartay aan wax u qaban lahayn ugu dambeyntiina madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay madasha ayaa sheegay inuu soo daahay sanduuqan dhaqaalaha loogu ururinayo bulshada dhibtu ka soo gaadhay tacadiyadii hore uga jiray deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya inteeda kaleba sanduuqaas waan taageeraynaa waan soo dhaweynaa waa fikir fiican ciidda u aragta sanduuqaas inuu siyaasad yahay tani intii la soo hadal qaaday oo sanduuq dadkii TPLF dhibaatada u geysatay lagu gargaarayo hal la keeno markii la yidhi cidda dhibsanaysa sanduuq kale oo kala mid iyadoo hasmayso looma diidanay oo dadka aqoonta ha ugu ururiso laakiin aqoon soo hadal qaadi mayno waxba u ururin mayno xitaa ka hadli mayno cid u urursan waa dhaleecaynayna arrin khalad weeyaan arrintaana waa maartay sideeda loo sheegay weeyaan cid allaala cidii shacabka tacadiga u geysatay midnimo isku malihin waxaan midnimo isku leenahay cidii hadaf aan wadaagno عدي هدف أن وذاقنا كجو أنت هاي شعب صوماليات بانهاي دم اللي نور باتيا معها إن تعدي نور معها إن قوميها كلا سيد يسوق عشان يان يسوق عشان نوي عدة مثلا هدف أن يكون دونه يا لهم دول بكراي دم بيله يكيد دم بيله كلام دول بكراي وعيد دروس محمود أقول تلفزيون عالم جارية تشيك